aad baan uga welwelnay waana hadalla aad aan uga baldahnay inaan kala kulanno sida wax ka jira iyo xaqiiqada marka shirkayna waxaan ka faa'iidnay runtii gudoomiye Sacdiya sida ay hadda noo xaqiijisay noo sheegtay saddex arrimood oo aad u waaweyn oo runtii wax lagu faani kara oo bulshada Soomaaliyeed aan gaarsiinayno qodobka koobaad mid aan kulligan isku waafaqsana oo ah in dadka gabdhaha Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeedba inta caddi loo geysto aan ka soo wada horjeedno inay idu u oleyso waa waajibaadka saaran qayb kamid ah waa ku hambaleyna qodobka labaad oo ka faa'iidna waxa waaye xeerkii jinsiga ee anu ka daaco Soomaaliyeed aan nahay dadka matalayay aan 17kii diidnay aan qoraal ka sameeyna saxanay la bedelay golaha wasiirada maray baarlamaanka tagay dadkii ka hor yimiday ee diiday akhlaaq xumadii iyo dhibaatadii ku qoreed inay kamid ahaydeen ayaka culmadooda iyo sida maartay bulshada loo khaldaayay iyo warka la sheegay oo qofkii saddexaad ee qaranka inuu ka yimiday aan u cunan min taas baa kalitay inaan sida diintu ay qabto yardina amru in jaakum faasiqun binaba'in fatabayyanu ilaahay leeyahay inaan xaqiiqsano anu qofkii barkii boqol idaacada ay soo wacday laakiin waxaan ku yiri horta aan arko waxa la dhahay dhigasado kadibna aan arko gudoomiyaha aan arko marka qoraal soo diray oo ku faraxsanahay inay aqbashay maanta oo la ku fariisanay wixii jirana ay noo sheegtay Sacdiya waxaan ka codsanaynaa mar kale iyo mar labaad in kuna boorinaynaa xeer kasta amba hindisaya sharciyad kasta ee dalka aan diintiisa dhibaato ku ah baarlamaanka inta ay joogto ay gudoon ka tahay xilmaan ka tahay waa hadda gudoomiye insha Allah way dhamaysanaysaa inay ka hortimaado sida caadadeed hore u hor ma jirta ka codsahayna waxaan doonaynaa dalkan inanka in laga xoreeyo cadawga afkaarta cadawga dalka inaan baabi'iso hadaamada oo khawaarijta dalku inaan ku faafin waxaan doonaynaa dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka akhlaaq xumada jirtana in la zuuliyo waxyaabaha ka jira xeebahayna waxyaabaha ka jira hoteelada qaarkood waxaasoo dhan waxaa la rabaa in loo istaago in daroogada dalka la keenayo laga hortago inta cadiye loo geysay gabdhaha Soomaaliyeed diinteena way dhowrtay gabdhahayna ilaa dhagax ay ku xukuntay in lagu dilo ninkaas qofkii faaxisha faafinaayay way lacintay uga xasaas daraadeeda waxaanu leenahay diin oo xaniif ah oo ilaahay koonka dhan ugu talagalay dad muslimiin ahaan nahay waxaan u baahanahay marka in aan ku boorinaynaa dan culmadii aan nahay baarlamaanka iyo xukuumadda iyo madaxweynahaba in dalkan laga badbaadiyo afkaaraha hadaamada ah oo khawaarijdu wato iyo akhlaaq xumida faafaysa